taliyaha lamadgelyada laanta wadooyinka gobolka Gabiley Cabdirashiid Garle ayaa waraysi u siiyay telefishinka caalamiga ee Ariel ayaa waxa uu kaga hadlay shilalkii sanadkan dhacay isagoo sidoo kalena amaawir ku soo rogay gaadiidka waaweyn iyo gaadiidka yaryar ee bajaajta taliya Cabdirashiid waraysigan ka qaadnay ayaa waxa uu dhacay sida tan maasantin Ariel shilalka ka dhacay gobolka Gabiley 2019 waa sidan soo socota horta shilalka gaadiidku waa aafo qaran oo gaadiidku ay leeyihiin oo ay u geysteen bulshadeen maadaama gaadiidku uu noqday aaladaha ugu khatarta badan oo mar walba geysanaya dhimasho iyo dhaawac joogta sanadka 2019 dhimashadu waxay ahayd 13 dhaawacu wuxuu ahaa 263 qasaaraha gaadiidku waa 289 baabuur xooluhu waa 10 neef dhismaha guryaha waa 3 guri tirada guud ahaan shilalka ee dhacay sanadka waa 340 shil haddaba tirada guud ee shilalku waa 340 way aad bay uga yaryihiin markaad u eegto sanadadii hore 2018 iyo 17 aad bay u fara badnaayeen taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiley waxa uu dirawalinta ku amray inaanay maandooriye isticmaalin inta ay jidka marayaan sida qaadka iyo sigaarka waxa kale oo door lahaad ka qaata shilalka gaadiidka cabitaanka ama cunitaanka daraagiska sida kiniinada xashiishadaha qaadka laftiisu oo isagu kamid ah daraagiska waxa kale oo shilalka gaadiidka ka qayb qaata cabitaanka sigaarka oo door lahaad ka qaata shilalka gaadiidka haddaba waxaan baaqleen u dirayaa wadayaasha gaadiidka ee iskaga goosaya gobolka Gabiley waxa mamnuuca wadayaasha gaadiidku inay isticmaalaan cunitaanka jaadka iyo cabitaanka sigaarka dadweynaha aan ku boorinayaa in ay iska ilaaliyaan wadayaasha gaadiidka ee isticmaala muqaadaraadka kuwaasoo mar walba geysanaya shilal dhimasho iyo dhaawac ka heli kara taliye wado afar hada ayaa Gabiley laga sameeyay waqtigan oo dhismeeyay dhameystirmay waana jidka halbowlaha u ah ee bulshada magaalada Gabiley ay ku badan tahay qorshaha ma idinku jirtaa inaad calaamadihii iyo kiiloomitirradii wadadaas idinku aad u sameysaan waa su'aal aad u wanaagsan aad baad u mahadsan tahay wadooyin waxa laga sameeyay gobolka Gabiley golaha deegaanka ee gobolka Gabiley uu hogaaminayo maayarka magaaladu Maxamed Amiin oo wadooyin aad iyo aad u ballaaran ka sameeyay waxa qorshaha loogu jirta oo aan dhisaankeedii wadnaa in loo sameeyo calaamadihii wadooyinka meelihii dadku ay ka talaabayeen meelihii iskuulada ee khatartu ka imanaysay speed limited oo lagu soconayo socodka lagu soconayo magaalada dhexdeeda waa baleenkii uu noo diyaar weeyaan maayarka magaaladuna isaga ballan qaaday inuu calaamadaha wadooyinka uu sameeyo waana lagu mahad celinaynaa maayarka magaalada wax qabadkiisa iyo waliba tan nabadgelyo wadooyin ahaan gobolka wax qabadka iyo baahiyaha sida degdeg uu uga jawaabo waanu mahad celinaynaa maayarka magaalada dadka bajaajta waxaad ka usbuurseen sameecado badan oo dhibaato ku hayay dadka xanuunsanaya masaajidada iyo dadka waayeelka ah oo iyagana howl fuudin dheer ay ugu qaban jireen waad ka ururseen imika hasaatee waqtigani markaad ka qaadaan mid kale ay soo qaadanayaan waqtigani sameecadu meel walba way ka qaylinaysaa bajaaj kasta oo magaalada maraysa arintaas miyaanay maxay niga qorsheysan waa xaqiiq in gaadiidka bajaajtu ay tahay gaadiidka loogu hawsha badan leh gaadiidkaas oo mar walba geysta qasaare dhaawac dhimasho oo ay u dheer tahay agabyadan aad imika adigu gacantaada ku aragtay waxa nooga qorsheysan hawlgalkayga caadiga ah uu socdaa wax dhamaanayana maaha waxaan si baaq dheer u dirayaa milkiilayaasha gaadiidka bajaajta in ay bajaajtooda u dhiibtaan dad hanan kara mas'uuliyadda wadista gaadiidka haddii ay u hoggaansami waayaan waxaa looga qorshaysan inaanu tallaabo sharciga waafaqsan aanu ka qaadi doono
maadaama ay diideen inay u hoggaansamaan sharciga gaadiidka waa fulinaynaa annagu xeerka nabadgelyada wadooyinka taliya muddooyinkii u dhameysay waxaad ku soo rogteen ama wiil baad ku soo rogteen bajaajlida inay waqti xiroodaan iminka waxaad ku arkaysaa 3 habeenimo 2 habeenimo iyagoo yaacayo meel la oran karin markaasi amarkiini muu fulin oo ama wiilta fuliseen may qaadan gaadiidlida bajaajto horta gaadiidka bajaajtu waa gaadiid 3 lugoolaya oo ah gaadiidka aadka u yaryar way dhici kartaa in mararka qaar ay saacadaha soo kala qaar socdaan ee majority marka la eego boqolkiiba 90 waxaan oran karaa uu fulay amarkaasi oo gaadiidku way seexdaan oo amarkii 10ka habeenimo ahaa way u hoggaansameen waxaase laga yaabaa wadayaasha gaadiidka qaarkood inay ka dhaga adeegaan oo wadooyinka luuqluuqyada meelaha cidhiidhiga meelaha aan gaadiidku iyo ciidamadu aanay joogin inay marayaan mukhtaar nuux ibraahim telefishinka caalamka Ariel gobolka Gabiley adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida